waxaad u sugnaatay Allah subxaanahu wa tacaala. kadib waxaan u mahad celinayaa wakiilada shacabka Soomaaliyeed ee ah mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo mar kale igu aaminay hoggaanka Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. waxaan sidoo kale farxad iyo sharaf weyn ii ah kasoo qaybgalka mugga iyo miisaanka leh ee ay dalalka aan walaalaha iyo saaxiibada nahay uga soo qayb galeen munaasabadan caleemasaarka madaxweynaha tobanaad ee Soomaaliya. dhowr iyo 60kii sano ee Soomaaliya ay xorta ahayd waxay qaadatay hannaanka dimuqraadiyadda marka laga reebo 22kii sano ee ciidamadu ay talada hayeen. dhaqankaas waa mid ay ku faani karto ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan, isla markaana saldhig u ah himilooyinka iyo tiigsiyada shacabkeenna sharafta leh ay tiigsanayaan ama ku haminayaan in ay ahaadaan dal dimuqraadiyaddu ay ka hirgashay. mudanayaal marweyn madaxda sharafta leh 22 sano kadib markii dowladnimada Soomaaliya dib loogu soo yagleelay dalka Jabuuti, madaxda iyo shacabka reer Jabuuti mahadiha ka gaartay dalkeenna wuxuu maanta cagta saaray dhabbihii taabagelinta dowladnimada iyo dimuqraadiyadda iyo horumarka. waxaana dhabbahaas dimuqraadiyadda iyo dowladnimada waxaa saldhig u ah Soomaali heshiis ah, dunidana heshiis la ah. marka aan leenahay Soomaali heshiis ah waxaan ula jeednaa qodobada soo socda. 1. dhab u heshiin baahsan oo dhex marta shacabka Soomaaliyeed si loo xalliyo tabashooyinka kala duwan ee ka dhex jira dadka ama la kala qabo. waxaa bogaadinayaa horumarka iyo deganaanshiyaha deegaanada Somaliland. waxaan si gaar ah diiradda u saari doonaa sii wadidda wadahadallada ayadoo mar kasta laga jawaabayo dadkeenna Soomaaliyeed inay helaan xaqa muwaadinimo ay leeyihiin walaalahaas ku nool waqooyiga. waxaan ka hortegi doonaa wax kasta oo caqabad ku noqon kara wadahadallada iyo dib u heshiisiinta si ay dadkeennu isugu soo dhowaadaan dhammaantood. qodobka 3, xasilooni siyaasadeed oo lagu gaarayo wada tashi, wada ogol iyo wadajir ka dhexeeya hoggaanka shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, iyadoo mar kasta la tixgelinayo dastuurka iyo shuruucda kale ee dalku u yaalla ama loo samayn doono. 4. taabagelinta hannaanka federaalka ah si uu u noqdo mid gaara heer degmo si dadka loogu dhoweeyo dowladnimada. 5. taabagelinta heshiis bulsho oo